السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا دمانتين وشيكو عصب أو كميدة برنامج كي تحنها ينوها قصوينكا أي نوصو دريين دادك تلوينكا نسو ويديستا وحانو مهد علينا يا دادك نلو ذاقي قصوينكا أي نلوشو ذاك سو وجهين وحان سيدوكا لأو مهد علينا يا dadka aqalka u saaxiibka ah ee talooyinkooda ugu deeqa dadka u baahan talada dadkuna waa isku wada baahan yahay ma jiro qof kaligiis isku filan qof kastaaba waa u baahan yahay talo iyo tusaale sheekadan waxa ay soo diray wiil Soomaaliyeed waxa uu sheegay magaciisa iyo waliba magaca gabadha laakiin waxa uu sheegay inuusan wax dhiba u arkin hadii aan sheego السلام عليكم سليخة والواد مهتسن تهاي أديد أنت كحيران بوجاجة قيمها بدن مجا قصة دوا عاشق شكل جلي محاو داو أددوينو وحايكو بلاغان أساسيدان لبادي يكون يا أفريو طبنكي بشي لحادة فريو طبنكي دي أيا وحان برشاكو عد صدق جبر حافظ إلى الدجنيد oo lagu magacaabi jiray Xamdar nahaantii aan markaas aad uga helay sheeko iyo isbarasho kadib waxaan nasiib u yeeshay inay iga aqbasho codsigaan dhibtay intaas kadib waxaan noqonay dad isfahmay marba marka ka dambeysana isku fiicnaada Xamda markii aan si fiican isku gudagalnay ayaan labadeenaba si kadis ah isku ogaanay inaan nahay family isku dhow xagga hooyo macaan run ahaantii maalintaas waxay noo ahayd maalin farxad badan waayo awal waxaan ahayn dad isfahmay laakiin qof walba qofka kale difaac uga jiro laakiin markaan arintaas ogaanay ayaa waxa dhacday in qof walba qofka kale aad u aamino waayo cabsidii jirtay meesha waa ay ka baxday wax kastaaba ha ahaato waqtiga iyo waayuhu waa wax socda saacad kasta wixii qoranina waa ay dhacayaan Xamda waxay ahayd qofka kaliya ee aan dunida ugu jeclahay iguna qiimaha iyo qaayaha badan aan ku tala jiro inaan nolosha la wadaago wax kasta oo iyada farxad gelinaya inaan u sameeyo ayaan jeclaa markasta iyaduna way ilaalin jirtay inta badan oo waxaan ahayn dad isku fiican jacaylka aan isku qabnaana qof walba qofka kale waa uu ka daran yahay waayo maalin walba meeshuu taagan yahay wuu ka sii dhaqaaqaya Xamda waxaan wada soconaba waxaan noqonay dad isku kalsooni dheeraada wadaagi jirnay wax kasta dhibka iyo dheeftaba dhowr mar ayaan caqabado kala kulanay dad nagu ahaa xaasid oo aqoon noo lahaa xaafadana nala deganaa laakiin ma aysan ku guuleysan waxa ay nala damacsanaayeen oo jacaylkeena iyo kalsoonida naga dhaxaysa ayaa ka awood badatay hase ahaatee aniga markaas waxa ay dhamaaday iskuulkii sare waxaan ku tala jiray inaan jaamacad bilaabo walow aan ka niyad jabsanaa jaamacadaha dalka oo kuwa dibadda aan rabay laakiin ma aysan suurtoobin dhanka qarashka ayaa adkaaday Xamda waanu sheegi jiray wax kasta oo aan damacsanahay ama aan qorsheynayo maalintaas waanu sheegay inaan jaamacad dibadda ah raadsanayo waa ay ka naxday waxayna igu tiri Maxamedow ma iga fogaanaysaa mar dhow wadan kale miyaad iga aadaysaa anigu waan ka naxay hadalkaas wuxuuna igu noqday mid murugo igu reeba laakiin si taxaddar leh ayaan uga jawaabay waxaan ku wargeliyay inaanan ka fogaanaynin marnaba intaan noolahay dunida haddii ay muuqayga weydana inuu qalbigaygu la joogo wehelna u yahay maalintaas way iga qanacday laakiin aniga qorshahaygii jaamacadeed waxba iska bedelay waayo waxaan galay inaan dib isku xisaabiyo aniga oo dhinacyo badan ka fiirinaya waxa jira dalka iyo waxa ila gudboon mustaqbalka dhow iguna soo fool leh waxaan isdhahay hadaad jaamacad dhamayso dalka shaqo ma lahan Xamdana 5 sano waa ay ku sugi kartaa laakiin waxa meesha yaala ayaa ah nin qurbaha ka imaaday ayaa bari ka hoos qaadi kara kana lacag badan waayo wax kasta ayuu haystaa iyadana markii aan dhankeeda kalsooni ka haysto dhanka waalidka ayay wax ka imaan karaan sidaan uga gudbi lahaa noloshaas aan ka cabsanayo ayaa waxa ii soo baxday inaan tahriibo wax kastana aan maro nolol kastana u dulqaatee waayo waxaan ahay qof hiigsanayo meel sare Xamda waan ku wargeliyay inaan tahriibayo waayo waxba kama qarin jirin maalintaas waxay ahayd maalin ay ila joogtay waxay u noqotay Xamda inaan ka fogaaday oo ilin ayaaba soo dhaaftay indheheeda anigu aad ayaan u naxay waxaan guda galay inaan la qaybsado xaaladda ay ku sugan tahay wax kastaba ha ahaatee waxaan fahansiiyay inaan baxayo laakiin aanan ka tagaynin iyada uuna u harayo qalbigaygu balama adag
adag ayaan kala qaadanay ilaa aan gaarnay kitaabka quraanka inaan ku dhaarano labadeenuba maalintaas waxay ahayd maalin murugo ah laakiin si fiican ayay iigu duceysay qalbiga way iga sii deysay anigu waxa aan guda galay safarkaygii dheeraa waxa la gaaray xilligii bixitaanka waxaan qorsheynayay inaan baxo isbuucii aan ku jirnay markaas waxa la gaaray xilligii bixitaanka xamda mar kale ayaan is aragnay si aan u macasalaameeyo laakiin murugo ayaan ka qaaday iyada oo igu qanacsan inaan baxo oo wax badan iga waanisay laakiin aniga aan qaatay go'aanka ayaa haddana waxaa jiray xanuun aan dareemaynay labadayaduba qof kastaana dareemi karo laba qof oo isjecel oo kala tegaya hadalkii ugu dambeeyay markaan soo baxayay aan ku wada hadallo waxa uu ahaa xamda teelka hadamin marna waayo meel kasta aan tago ama aan teel ka helo waan ku soo wacayaa waxayna iigu jawaabtay haye maxamed waa ballantaas xamda oo aan ku aqaanay qiimeyn iyo inay hadalkan dhaho aad u dhowrto ama ba adkayso ballanta aan wada galay aniga meesha aan tagaba waan wici jiray xaaladayda way la socon jirtay xataa salaatuleyl ayay u tukan jirtay inuu ilaahay inabadgeeyo markasta aan la hadlo way ii ducayn jirtay anna niyadda ayaaba ii dhismi jirtay wax kastaba ha ahaatee aniga xamda ballantii aad iyo aad ayay iigu oofisay anna waanu oofiyey فاضي تبقى إلى مرتين صمتك إلى قيب ستاي فاضي تبقى إلى مرتين صمتك إلى قيب ستاي أما أنا ذا دورتاي والله أنت إلى أوفيساي أما أنا ذا دورتاي والله أنت إلى أوفيساي أبالك ديغا مناي ويجي ما إلو غيو qalbigaad ku abuuratay runay adaanibka ku jeclahay lakasi adaanibka ku jeclahay safarkaas waxa aan ku soo jiray muddo 9 bilood ah intaas isbuuc qura maanan ismoogeyn waan isla xiriiri jirnay walow aan taleefano ajnabi xataa uga baaqi jiray mararka qaar inta badan hore ayay iiga soo celin jirtay wallahi wax kastaba ha ahaato waxaan soo galay Yurub gaar ahaan wadanka Italy maalintan badda soo galayay aad iyo aad ayay iigu soo duceysay markaan galay oo aan u sheegay inaan badbaaday wallahi waa ay faraxday farxad weyn oo markaas uu dareemi karo qof wax jecel aad ayayna iigu hambalyeysay wax kastaba ha ahaato markaan muddo wada xiriirnay ayada oo dalka joogta iyo anoo qurbaha jooga ayaa waxa imaaday caqabado ka imaanaya xaggeeda sidaan anigu isdhahay laakiin maalinaan si fiican u wada sheekaysanay ayaa waxa ay ugu dhahday maxamed wax badan ayaan ka qarinayay laakiin maanta ma qarin karo waan ku sheegayaa arin aan kugu arkay taasoo ah inaan ka shakiyay waxaan ku dhahay maxaad aragtay mase jiraan wax cadayn ah aad igu hayso waxay igu jawaabtay haa cadayntu waa kow sidii hore iima tihid waxa kugu yimid isbedel labo hadalkaad igula hadlayso maadan igula hadli jirin markaad la joogtay saddex waxa aan filayaa laakiin aanan xaqiiqo u hayn inaad dad kale ama qof dumar ah baratay oo mar dhow iga maarmi doontid waliba anoo ku jecel sidii hore si ka sii daran aniga waan isku yaryaraaday waxaan ku hadlo ayaan aqoon waayay wallahi adduunka ayaa igu soo yaryaraaday xamda siday u hadashay kaliya maalintaas aad iyo aad ayaan u yaabay waayo waxaan ugama baran xamda anigana Allah ayaa igu og inaanan isbedelin qof kalena aanan baran taas ayaana ah runta Allah waan dhaartay waan cabaaday wax kasta waan sameeyay xamda waxa ay igu dhahday waan ka qancay laakiin anigu aad baan u dareemayay inaysan iga qanacsanayn waayo wax kasta waan fahmayaa iyo isbedelkaba waxaan u sheegay inuu Facebook-ayga saaran yahay sawirkeeda qof kalena aanan la sheekaysan karin jacaylkii waya arag astaan
astaantii lagu xusay jacaylkii waya arag astaantii lagu xusay ubuxda beerkii